daago ninkii u dhashay wadanka Masar ee axadii dadka Yahuuda ah ee mudaharaadka sameynayay ku tuuray waxyaabaha holcaya oo dadkii dhaawacmay boolisku ay sheegeen in hadda 12 qof ay yihiin. isagii dacwada ayaa shalay lagu soo oogay, maxkamad ayuu ka soo hormuuqday, waa la wareystay. booliska muxuu u sheegay ayaan rabaa sidoo kale inaan idinla wadaago, isagoo weliba xabsi daa'in mutaysan kara dacwadahan lagu soo oogay. tirada ay leeyihiin kuwa kalena laga yaababa in lagu soo oogo. ciidamada ICE oo shalay sheegay in bishii lasoo dhaafay howlgal ay ugu magac dareen howlgalka wadaniga oo ay ka sameeyeen gobolka Massachusetts ay ka soo qabteen ku dhawaad 1500 oo qof ayaan sidoo kale idinla wadaagaya. dadkaasi maxay isugu jiraan? sidoo kalena ninkii madowga ahaa ee gabdhihii Soomaalida shilka gaari ku dilay oo maxkamadeyntiisa maanta ay maalintii afraad gashay. shalay mid ka mid ah aabaha dhalay gabdhihii dhintay ayaa halkaasi ka hadlay, weliba ilmeeyay, iyo qaar ka mid ah booliskii wareystay markii ninkan shilka uu u geystay gabdhahaasi oo iyaguna ka warbixiyay waxyaabihii halkaasi ay kula kulmeenna waan idinla wadaagaya. balse marka hore soo dhawaada. Mohamed Sabri Suleiman oo 45 jir ah oo axadii dad ilaa iyo 30 qof ah oo Yahuud ah oo toddobaad kasta sameeya mudaharaad nabdoon oo ay ku dalbanayaan in maxaabiista Gaza ay ku haysata Xamaas la soo daayo uu magacoodu yahay Run for Their Lives uu ku weeraray waxyaabo holcaya oo dhalooyin intuu ka soo buuxiyay waxyaabo dareeraha holcaya uu ku tuuray. shalay 8 qof ayaan idin sheegay, laakiin shalay hay'adaha ammaanku waxay sheegeen dadku 12 qof inay gaareen dadka uu dhaawaca uu u geystay. haddaba shalay xafiiska xeer ilaalinta ee Colorado ayaa ninkan dacwada ku soo oogay, maxkamad ayuuna ka soo hormuuqday. dacwadaha lagu soo oogay waxa ay leeyihiin ilaa iyo 16 dacwadood oo heer gobol ah iyo sidoo kalena hate crime oo ah nacayb oo ah federaal. dambiyadaasi kala duwan ayaa lagu soo oogay. ninkan waxaa haddii dambiyadan lagu helo oo mutaysan karaa xabsi daa'in, laakiin isaga markii la wareystay faahfaahinadii uu bixiyay waxa ay noqdeen waxyaabo si weyn loola yaabay oo uu qiranayo inba uu rabay arrintan in uu geysto. waxa ay xafiiska xeer ilaalintu sheegay in sharciga Mareykanka aysan qayb ka ahayn in qof lagu bartilmaameedsado